الله نبينا صلى الله عليه وسلم ميل يربو نغتو سميل حديث في صحيحين ميل في السنن صحابي بالنبي قوي يا رسول الله مركم إلهي أنبر يا صلي قاقا دعاء إذا مركم نفروا قيبيو قيب بان كدغاي كورن بو كيد marka abu nabigu ku yiri waa khayr hadaad ka ziyadisaasin kasi khayr badan bal xadiiska dhageysta marka saxaabiga yiri marka loo qaybiyo salligaaga qayb ba ka dhigi buuri labana de anna bashar baan muraadkiisa ilaahay u sheegan marka abu nabigu waa khayr fa yazidta fa huwa khayrun laka hadaad biirisana kaga si khayr badan markaasuu yiri saddex markaan u qaybiyo laba qaybood salligaagan ka dhigi midna ana baahidayda ilaahay u sheegan waa khayr buu nabigu ku yiri hadaad ka ziyadisaase kaaga khayr badan hadana wuxuu yiri sidaas markaasuu saxaabigii yaabo wuxuu yiri haduu arinku sidaaba yahayba ducadeydii dhanayd baa intuu halka iska dhigo ayaa salligaaga ku bilaabay salligaaga ku dhameyn marka abu nabigu ku yiri idan tukfa hammuka wa yughfaru laka dhanbuka bukaydi hadii markaad gacmaha ilaahay hor taagto ducadii dhanayd aad salligayga ku bilaabdo salligaygana aad ku gabagabaysidba waxa wixii adduunyada hammi aad lahayd oo dhan waa lagu qabtay waad heshay dambigaagina waa la dhaafay rasuulku ka yiri sirta nolosha ma tahay sama halkaas laakiin indhihi lagu arkay Allah nasiyo indhihi khayrka lagu arkayay ee quraanka lagu arkayay ee salliga nabiga lagu arkayay qiimihiisa ee ducooyinka nabigu nasiyo lagu arkayay indhahaas waa indhaha qalbiga Allah inoo furo waxa uu nabigu ninka ugu jawaabay bal dhageyso hadii ducadaadii dhanayd salligayga ku soo koobtid adduunka dusheeda wixii hammi humum Allah hammiga bini aadamka adduunka waa laba weeyaan mashkalad haysata oo xal u raadinayo iyo xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa uu doonayo labadaaba wada shay rasuulku ka yiri aakhirana ma taqaana qofka muslimka waxa haysta wuxuu ka aakhira markii la hor joojiyay ilaahay waxa ka cabsi qaba waa maxay war muxuu ka cabsi qaba waa dambigina waa laga dhaafay rasuulku yiri waa salligii nabigeena kaleey salaatu wasalaam ayuu nabigu noogu sheegay sirta adduunyada nolosha inay halka ku jirto ee sirta aakhirada adduunyadana wixii hammi aad lahayd oo dhan hammiguna waa labada ay dhageysto waa niigu celinay waa mashkalad ku haysata adiga oo xal aad u raadinaysid iyo xaaje aad leedahay oo cid ku qumisa aad doonaysid ilaahay baa ku daboolay mashaakilkiina ilaahay baa ka faydi xaajadaadina ilaahay baa ku qumin aakhirada hammiga ugu weyn ee qofka muslimka hor yaala oo qof walba ka baqayna waa maxay waa dambigiina waa laga dhaafay rasuulku yiri waa salliga nabiga